waxaa marar badan aad looga hadlay doorasho qof iyo coda iyo sababaha ay ku iman karayso doorasho qof iyo coda waa laga hadlaa 2016 doorasho qof iyo coda laga hadlayay waxa la isweydiinayay amnigu ma noo saamaxaya ma la hayaa tirakoob 4.5 see looga tagi karaa qabiilka iyo meeskeeni karaan su'aalahaas oo dhan waxay ahaayeen kuwa taagnaa waxaa loo dibdhigoo la yidhi 2016 doorashadu markay dhacdo intaasoo dhan aan saxno qabiil aynu ka tagno 4.5 tirakoob aan samayno deegaanada aan xorayno dadka hala tirakoobo axsaab hala diiwaan geliyo oo haluma jarra qodobo badan oo noocaasaa la tiriyey aan isweydiina maxaa ka qabsoomay waxaan odhan karaa intaa aynu isweydiinaynay hal tallaabo oo laga qaaday ma jirto bale waxaan ku baraarugnay markii ugu dambaysay in 2019 la isweydiiyo 2020 oo la yidhaahdo doorasho qof iyo coda seenu qaban karaa iyo ma qaban karaa iyadoo xaaladda amni aan garanayno waxaad ogtihiin 2017 London baa shir la isugu tegey waxaa laga hadlay amniga qaranku kayfiyadu uu yeelanayo waxaan isugu nimid baydhaba waxaan ku heshiinay ciidan amni qaran in la dhiso oo weliba tiradiisa la cayimin oo ay ku jirto 32,000 oo boolisa daraawiish ay ku jirto booliska caadiga uu ku jiro heer state iyo heer federaala waxaa loogu talagalay lagu heshiiyey in la dhiso ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka kooban 18,000 oo tayeysan ciidanka intaa leeg haddii la dhisi lahaa oo waqtiga iyaga lagu talagalo oo aan ka shaqayn lahayn waan hubaa amisoomna dariiqada loogu talagalay iyo mandatekeeda iyo sida ku bixileed waa ka shaqayn lahayn laakiin ma aysan dhicin xaaladda amnigu waxaan odhan karaa waa midda ugu adag ee maanta waddankeenna hor taalla aniga oo qeexaya culayska shabaab nagu haystaay inuuna ahayn mid iyaga kartidooda tayadooda iyo qualitigooda midna ah ee ay tahay annaga ducfi naga yimid shaqa xumo naga timid shaqa la'aan aanu qaban weynay iyo annagoon u diyaarsanayn waxa aan ka hadlayno inaan ka rur sheegno haddii aan la samayn karaynin markaa oo ayna dhici karaynin in la qabto oo waddankii shabaab laga xoreeyo oo hawl kale la galo waddankii mas-uuliyadda dowlad heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ka saaran waxba laga qaban waayo waxaa adkaanaysa xulumka iyo riyooyinka fiican ee ay dhallinyarada soo diyaarisay iyo macadku diyaariyeen ka jawaabisteeda inaan ka jawaabno aad bay noogu adkaanaysaa way nagu adkaanaysaa jawaabaha inaan bixinno taa macnaheedu waxa weeyaan heshiisyadii aanu xilligaa gallay oo aan filayo inuu prime minister joogo maanta xasan cali khayre oo ahaa markaa prime ministerka waxa ugu horreeya oo ka mid ahayd inaan ciidamada heer state loo aqoonsado ciidan inay yihiin ciidanka amniga qaranka oo ciidamada daraawiishta heer state la siiyo xuquuqda ay leeyihiin kuwa SNA-du la siiyo qalabkooda iyo hubkooda iyo rasaastay u baahan yihiin waxaa lanagu yidhi soo diyaariya waxaad u joogtaan xilligan iyadaa inta idiin joogta waan garanayaa isteydyadii markaas joogay waxay wada gudbiyeen baahida ciidan ee loo qabo iyadoo markaa ay u timid dowladda 80 konteenar oo rasaasa oo loogu talagalay in ciidanka Soomaaliyeed lagu hubeeyo oo shabaab lagula dagaalamo ma aysan dhicin ilaa hadda dalabkii xafiiska xasan cali khayru yaalay I think rooblu ku soo wareegay madaxweynaha la weydiinayaa guuleed baa la weydiinayaa nothing else halkaasay ku dhammaatay ma aysan noqonin markaa dagaalka shabaab ee aan doonayno inaannu gallo iyo kayfiyada aan rabno inaannu gallaay waxay noqotay mid annaga nagu eg oo ay leeyihiin dowladdii federaalka ahayd annagii isteydyada ahayd idhab anta warabbuka faqaatila innahaa hahunaa qaaciduun annagu halkan aan fadhiyaynaayo orda idinku shabaab la dagaalama iyaguna ay ku mashquuleen waxaan maanta maslaxada iyo midda dalka midna aan ahayn waxay gaadhay sicirbararka baydhabo ka dhacay inuu saamayn ku yeesho oo jidka baydhaba iyo muqdisho 90 kilomitir uu furmi waayo iyadoo intaasoo ciidana aan sheeganayno oo mushahar qaadanayo waxay noqotay in la iloobo wixii dhabtaa wax lagu qaban lahaa haddaynaan middaasi waxa ay tahay ee dhabtaa jawaabteeda aynaan ka bixinin oo aynaan isu sheegin shirarka markii la isugu yimaado war fiican baa la isu sheegaa waa la isqanciyaa shaaha la isla cabbaa bakeeriyada la isku dhuftaa waxaa la isu sheegaa wax walba inuu horumar yahay halkaa ay taallaa lagaga tagaa mas-uuliyadduna inta badan waa leeballay kala leedahay annagu waxaana soo gaadhaan leenahay laakiin mas-uuliyadda inta badan u badan
dowladda federaalka iskale haddaan idin idhaahdo Jubbaland oo ay isteydyada ay ugu badan yihiin shabaabku ma jiraan dowlad federaalka ah wax naga soo gaaro oo taakula ciidana marka laga reebo 2016 madaxweyne xasan sheekh waqtigiisii oo aan qoryo iyo rasaas ka helnay absolutely lama heli karayo in ka badan 42 goobood baa ciidanka daraawiishta Jubbaland ay joogaan oo dowlad federaala iyo amisom qaarkood xataa ayna la joogin iyaga keligood ay joogaan oo maalin walba dhaawac iyo dhimasho ay leeyihiin oo dhaawaca naga dhaawacmeen dabcan in la qaado Muqdisho loo qaado helicopterta amisomtu ay tiraahdaa SNA baan qaadaynaa kan daraawiishta ama qaadayn waana wax maalin walba joogtaa oo dhacaya idan aan idin weydiiyay wiilkii dhaawac ahaa marka midna la qaado midna laga tago waxa uu ku dagaalamaya iyo askarinimadiisa iyo dagaalka uu shabaab kula jiraa maxay noqonaysaa waxa nasiib darro noqotay markii ugu dambeysay ciidankii dagaalka noocaas ku jira ee from 2009 ilaa waqtigaas magaalooyinka hadda ugu amniga badnaa ee daawo ee gobolka Gedo gacanta ku hayay ee saaha in loo aqoonsado inay yihiin shabaab iyaga laftirkooda oo intay dawladdii la dagaalanto ciidankii Turkigu soo tababaray iyo kuwii qadar laga keenay iyo kuwii Jini laga keenay loo keenay kuwan aan la dagaalano iyadoo la fiirinayo iyadoo la eegayo markaa masaalix yar oo siyaasadeed iyo dana laga leeyahay bilaa calaykum anaan doonayn inaan ku sii dheeraado ma waxay idin la tahay maanta ciidanka bannaanka jooga ee Jubbaland ee daraawiishta ahaa ee dagaalkoodii iyo xadkood wax waliba ay gaadheen in la yiraahdo maanta waxa laga ilaalinayaa Kenya ciidan loo diro xuduud laga xoreynaya in ka badan 700 oo kiiloomitir baan Kenya xuduud la leenahay kiiloomitirka inta ay la leenahay 5 kiiloomitir miya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed haram cad iyo gorgor iyo shabeel intii la isugu geeyo yaa Kenya laga difaacaya iyadoo 4,000 oo Kenyana ay joogaan 700 oo kiiloomitir in ka badan oo xuduudana ay jirto yaa inta shacabka Soomaaliyeed waxa loo sheegayaa waxba la xoreynaya Kenya loo galay waxa kale oo rabaa inaan idin sheego waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego inaanan ahayn qof Kenya difaacay inaan ahay Soomaali jinsiyadiisu Soomaali tahay waligeena jinsiyad kale ma ana qaadan waxaa la yidhi dowladda Soomaaliya waxay Kenya u jartay xiriirkii ay la lahayd oo maxay ula jartay Axmed Madoobe waxay ku soo khasbeen in arrintii doorashada uu si kale uga hadlayo lagu jojoobayo iyadoo oo xuduudka inta leeg aan la leenahay Jubbaland kuma laha Nairobi wakiil siyaasadeed ama qunsuliyad matalaya ama safaarad matalaya safiirka hadda ka horeeyay Jamaal baan ka wada hadalnay waxaan ku leeyahay haddaan wakiil samaysto xuduudka inta leegna aan la leeyahay luqadii iyo ciidankooduna ay jeeraan waxay image xumo ku noqonaysaa safaaradda Soomaalida ee Nairobi joogta sidaa daraadeed waxaan rabaa safaaradda in xafiis la naga siiyo oo danaha iyaga aanu ka fushanno anoo diidaya inay u muuqato safaarad kale inay tahay waxay dawladdu isku khaladay waxa iyada ay xaq u leedahay iyo waxaan xaq u leedahay bad baana ka hadlin oo xuduud baana ka hadlin oo ima khusayso oo 20 goor baan ku celiyay oo waa federal issue wixii iyaga Kenya ka dhaxay inay ka hadlaan bay tahay laakiin in darbiye kale lagu warwareegay wax sax ma inta markaan ka soo gudbo waxa hadda aad looga hadlayaa Ilaahay laga cabsado balanta la fuliyo inaan doorasho qabanno oo waddankaani doorasho uu galay waa mas'ala meel looga wareegaan lahayn laakiin doorashada la qabanayaay waxaanu nidhi waa in xisbiyo iyo musharaxiin iyo tartan xora iyo kalsooni iyo inta la muujiyo haddii ay noqoto inaan anigu isku cabiro oo anigu qiyaaska qaato oo anigu sameeyo there is no means marka doorasho sidan iyo sidan loo qaban karayo waxaan rabaa saaxiibkay inaan u sheego ballantii aan galay raggii ila joogay way joogaan waxa laga yaabaa marka ballantaa laga hadlayo cidda ugu badan ee wax laga sheegayo 3 faktor baa la sheegaa laakiin Jubbaland baa ugu muhiimsan oo arrinta gadaal la soo hadal qaadan maalintii aan Kismaayo xamar ka degayay waxaan international community ee saaxiibadayba u sheegay
shirka inaana gelin inta xalka gada laga gaarayo saaxiibada waxaan isla qaadanay niyahow tagada waa la xallin doonaa ta guud baa asal iyada aan ka shaqeyno guddiyaa loo saaray waa la soo dhoweeyey maalintii dambe waxay gaadhay haddana inay meel fog naga kala tagto lagu kala tago saaxiibaday waxaan ku idhi 2 qof baa hadda ka fadhida iyo 3 midkoode nimanyahow waxaan doonayaa anu shirkan inaan ka baxo sababtoo uma arko wax laayiqa inuu meesha ka socdo waxaa la yidhi walaalow annagaa gelayna shirka annagaa idinla qabanayna annagaa kaala shaqaynayna waxaan doonaynaa inaad fadhiisato ood midka guud ilaalisa ka gaar waan u soo noqonaynaa waxaan ku idhi niyo haddaan ra'yigayga soo jeediyo arbaan loo qaata inay xumaan kale igu jirto taasaa waxay keentay markaa inaan qaato inaan fadhiyo shirkii oo weliba si furan oo xalaal ah doodayda aan uga bixiyo aan uga hadlo oo aan u sheego saaxiibbaday markaan la dhammeeyey middii aniga ila jirtay nin waliba tii la jirtay wuu ka baxay bannaanka isaga baxeen lama odhannin hal qof muuna odhannin garoortaadu waa imise waa la qaybiyey deegaanadii isteyd walba 2 goob doorashaa loo sameeyey jubbaland waxaa laga dhigay 2 gobol oo jubbada iyo jubbada hoose oo Kismaayo iyo gobolka Gedo oo ah Garbaareeya waxaan xaq u leeyahay isteyd ahaan inaan qabto doorashada gobolka Gedo ka dhacaysa oo maamulkeedii lagu soo celiyo oo amnigeedii lagu soo celiyo mise waxaan ahay mid ka duwan kuwa kale oo isteydyada kale inta labadooda doorasho qabsadaan yaa fikirka suuqa wareega leeyahay Axmed baa ballan ka baxayo waxaa lagu heshiiyey madaxweynuhu inuu qaato 16 Gedo ii sheega macnaha ay leedahay ha caddeeyo qofka ogaa ballantaa inaan galay madaxweynuhuse waa musharax doorashuu ku jiraa 16 kursi hadduu qaadanayo maan doorashada iska dayna faraha badan iyo sanaaduuqda la dhigayo iyo axsaabtan iyo nimankan indhaha cadcad ee wax sheeganaya musharaxiin baa nahay oo xisbiga antoodaanka kacaanka Soomaaliyeed intaan qoranno hal xisbi cafwan raalli ahaada intaan qoranno hal xisbi oo xisbiga antoodaanka kacaanka Soomaaliyeed oo 86 u noqono oo sanduuqii jaallaha ee daloolin iyo kii buluuga ah ka dhigano baan doorashada madaxweynaha ugu baarakayno waxaan maanta diyaar u ahay oo aan la qarinaynin saaxiibbaday isteydyada kale min hal magaalo inay ka tagaan oo madaxweynaha la siiyo aniguna aan Gedo ka tago madaxweynaha aan siino inta kalena aan qabsano haddii kale waxay noqonaysaa xuquuq loo siman yahay inay noqoto oo anigu saaxiibkay Axmed qoorqoorre uunan dhuusamareeb iyo gaalkacyo ku qabanin anna aan Kismaayo la igeynin oo la odhanin maya Gedo waxaa la siiyey meel baa lagu bixiyey waxaa intaa u helisa wuu fadhiyaa madaxweynihii xasan sheekh 2016 bil gudaheed baan 2 goor shiray maxaa loo shireeyey masale inta ka yar baa la isku qabanayay war haddii la yidhaha shir la isugu soo noqonayo oo khaladkii lama saxayo oo doorashaan qabanayna oo Puntland iyo Jubbaland bulalahaas iyo inta kala qabanaysa xagee lagu lisaya maxay noqonaysaa doorashadaas yaynaan noqonin kalatiin qadar qaslaha oo wixii aan soo maray intaan dib ugu noqono raadkeena yaynaan u baabiin dib oo waxaa maanta dawladdii wakiilka waxaa jooga gudoomiyaha aqalka sare waxaa jooga baarlamaanka waxaa jooga ra'iisul wasaare ku-xigeenkii intiina mas'uuliyad baa idinka saaran walaalayaal waxaan idin leenahay dadka Soomaaliyeed waxay ku fiican yihiin inay wada hadlaan oo heshiiyaan waxay ku fiican yihiin wixii lagu wada hadlay intii la isu yimaado in khaladka la isweydiiyo waxay ku fiican yihiin in la yidhaahdo war maxaa inaga khaldamay oo la saxo waxay ku fiican yihiin in bil walba mar la isu soo noqdo la istuuxaan bixiyo haddii aad iska wadanaysaan gudoomiye baarlamaan cafwan gudoomiye waxaad weli ka shaqaynaysaan iyadoo baarlamaankii waqtigiisii dhammaaday inaad maanta xeerar ka shaqaynaysaan ra'iisul wasaare saaxiibkay Mahdina waxaad moodaa inuu joogo January February 2017 shuruuc cusub iyo xeerar cusub ay ka shaqaynayaan aan ku soo noqonno
dalkani waa kuma Soomaaliya xagee ka timid maxay tahay war xageen haysanaa horta shalay rugta ganacsiga la kala diro waa la magacaabay shabaab ganacsatada waxay shir ma qabsan kartaan kii la magacaabay inala joogana waxa ku wariyaa ma sheegan kartid ma shabaab wada xukuumisanaga xukun doorashadan isku haysanaa samaxayta doorashadan isku haysanaa waa la xukumaawad guun baan nahay la xukumo amisoomna ay godadka ku jirto nana waadiyeynayso dawladnimadeennina midaasaynu ka dhignay Soomaaliya waxaan leeyahay waxay maanta dawladnimadeedu ku jirtaa kugusan waxay dawladnimadeedu ku jirtaa in la isqanciyo waxaan diyaar u ahay inaan wax kasta oo tanaasul oo dawladnimada Soomaaliyeed aan sameeyo waxaan maalintaas ku yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wariya waan ku dhisaynaa si walba waxba inoo nahay laakiin intaad ka baxda boroseeska campaign-kaaga ku jira war hadday dawladdii borosees gasho oo madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyo ku-xigeenkiisa ay borosees ku jiraan kuwan indhaha cadcad maxay u fadhiyaan iyo maxay qabanayaan aan ka shaqayno aan dib ugu soo noqonno raalli ahaada qof waloo innaga inaga mid yihiin ha xusuusto 91dii ha xusuusto 92dii ha xusuusto baahidii iyo barakicii dhibaatadii inagu dhacday ha xusuusto dadkeenna maalmoodba la xasuuqayo ha xusuusto ganacsadeenna labada canshuurood laga qaadayo ha xusuusto dhibaatada maanta inoo taala intaa markaan xusuusanayno dawladnimada Soomaaliya waxay ku jirtaa nabad kala wareeg doorasho 4 sano mar dhacda ninku si sharaf leh uu ku tago haddii lagu celiyana uu sharaf leh ku joogo lagula shaqeeyo laakiin hadday intaa in ka badan sii warwareegto wax badan baa inaga halaabay waxaan rabaa saaxiibaday nimankan musharaxiinta ee meesha fadhiya meelaydan hadhow ka soo celin karin ha gaarsiinina dawladnimada waxa ka iman kara garta hadhow anaa idhi iyo waan soo celin karaa midna waxba inagu noqonayso aan wada ilaalinno aan isku qabsanno aan guryaha isku dhaxlayno laakiin shaarica aan ka ilaalino dhibaato iyo mushkilad aan laga soo waaqsan doonin qolada kursiga ku fadhidana waxaan leeyahay wuxuu yidhi qur-aanka oo dhan baan aqaanaa ka akhrisan maayaa ka adag haddaad isdoorataan ood isu buuxisaan oo laydin yidhaah waan idin diidna meelaad ku foofisaan ma garanaysaan aan dadka isku wadno aan dawladnimada ka shaqayno waxaana hor yaalla aynu garanno culayskana hor yaalla aynu wajahno maanta garoowa dad badan baa isugu yimid way qaadi kartaa intaan eegana maqan aanu yeedhno hadduuna mahdi odhan karin madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweynow anoo afka ku hadlaya dadka reer Soomaalida fadhida iyo reer Puntland oo anaa kugu marti qaaday inaad noo timaado waddankaagii aan waddanka xalkiisa gaarna noo imo oo waxaa la yidhi koosaar garoha loo wada joogay waxaan wada ognahay ha noqoto oo yayna inagu dhammaanin January hadday bilaabato way dhammaanaysaa rag baa tirsanaya kursiga u xoqanaya oo leh February 8 baan sugaynaa February 8 process aan isku ognahay haddaan la qaadin berri buu tagayaa aan ka taxadara waddankan inuu dib u noqon aad baad u mahadsantihiin salaam calaykum